السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي أصحاب تشرفت لما يكستو كنا شهين وحويان صلاة دي جمعها أو yesterday هيد أي شيقان وحو كجهلي بابتشي للعاتو وملين مايو إنه صو جوابي لكن أتنك إنه أصو قاتي للعاتو comparison isbarbar dhigid waxa la yiraahdo inuu soo qaatay oo kaga hadlayay baabajay shiiqani waa shiiq I think sida aniga ay ila tahay baraha bulshada ku jira la socda I don't know malada ilaaha naga cafiya laakiin waaba shiiq waxay la tahay aniga aad iyo aad ula socda baabajay macnaha he's up to date sheekh waxaweyaan up to date hadaladiisaan isla aragno haddii YouTube-ka mar hore u qaatay 350 qofood baa ku xiran baabajay oo muxaadaro diiniye YouTube baabajay ayuu ku yiri shahaadadii YouTube-ka mar hore u qaatay 300 something people ayaana ku xiran يا هذا نحن محاضرة دينية هل مالنا أصوغو فيدينايا هدا أركتنا يا أما أدبرها بالشدة بكو أركت أما يوتيوب كيسا أكو أركتد $1000 أيان ديبيا ما نشي قاسي لسعون بابتشي ما نشي قاسي برها بالشدة كوشنا قاسة تنسي وناكسن أيوة حول الصعدة بابتشي تلابضة وقاضه والله الصعدة لا هيو YouTube-kiisa soo dhigay qofkii ii keeno abaalmarin buu leeyahay waa kaasa hal qof oo Soomaaliya oo baabajay YouTube-kiisa maalin intuu baraha bulshada soo galay ilaa iyo maanta ninkii ii keeno $1 buu leeyahay $1 aniga Salaad Maxamuud Hasiinay baabajay wiigan gudihiisa wuxuu soo dhigay wiil yaroo aan waalid u nahay oo 12 jira oo ka waalay markaas uu leeyahay waxaa soo baxay fan of course waa fiirsaday labada wiil oo yaryar oo macnaha baabajay YouTube-kiisa xumaleyna gabar ayaa tiri fiirso aan arkay maxaa la yiraahdaa wiil yar oo raab akhrinaya wiilka asagaaba baraha bulshada ku jira baabajay ma soo galin waa wiil asagu 12 jir ay meelahaas uu ku sheegay sheekho asaga ayaa baraha bulshada ku jira asaga ayaana ka hadlaya wiilka yarka arrimaha uu leeyahay una rabo mujada waa wiil yar oo rabo inuu raabar noqdo soo caanbaxo afkiisana xaqiiqda isku soo caanbixinaya oo macnaha hees raaba qaadahaya daahir calasow ayuu ku amaanay maxaa la yiraahdaa daraabka heestiisa ayuu qaar kaga amaanay ma soo qaadanayo anigu laakiin wuu kaga amaanay daahir calisay wuxuu yiri odaga weyn ma sha Allah baabajayna wuu kaga amaanay wiil yariisoo kale ayaa ag fadhiyay marka waan arkay waan fiirsaday xasha lillah laakiin sheekhu waxaan ku yiri sidiisaba waa up to date waa sida aan ku yiri wala socdaa waxa la yiraahdaa what is going on in baraha bulshada especially baabajay yaabka adduunka waa wiil yar oo loo baahnaa inuu yiraahdo war quraanka baro war isdhis ee wax qorey wax akhri xilligii aad wax baraysaa ku jirtaa xilligaad fan iyo balaayo geli lahayd kuma jirti wiilkaygiyow wiilka aan dhalay oo kalaan ku taas sheekhu kuma qaldana horta of course kalmadaas wuxuu intuusan soo galin meesha YouTube-kiisana wiilka wuxuu ku yiri Allahu a'lam كل هذا لو صادح مريان أو يوتيوب كما سو فريسنايو ما فهمتي مركا مدة أنا عن أدري حملة هاي وحويان مدة أو كذا هالليو حاس كيسة محل هذا كشقيا بابجي وننكي لا هذا يدبدا هويني أجنبي كا oo gaari ku riixayso ayuu wuxuu ka baxay airport-ka magaalada Muqdisho soo neer buu dhoofay marxaati idinka iga wixii muslima maxaa uu la yaabaysin liicaato baabajay bishii Ramadaan maalinkay dhamaatay ninkii xasuusto
taariikhdii dib u fiiriya baraha bulshada gala maalinkii shawaal oo kow ahay 30 maalmood baa la soo soomay soomkii hore soo 30 laba soomay yaa sheekh xasan shaqal weyti 30 maalmood baan xirnay baabajay maalinkii bisha shawaal kow ay ahayd dadku maalinkiina way soomnaayeen quraankay akhrinayeen salaadaha waajibaadka ay ilaalinayeen sunnooyinkana way ilaalinayeen habeenkana qiyaam bay taagnaayeen sadaqadana way bixinayeen okay maalinkii bishii shawaal ay kowga ahayd amaama almala ayuu xaaskiisa ku noqoday imaam ninka la yiraahdo baabajay ama ummadda hortooda ummadii u dabaaldegaysa ciidii ayuu yidhi xaaskaygaan laba filaan u samaynaya war baabajay oo jaahil baa tahay war muqdisho riskiyaa ka jira war mobeeladiyaa la isku dilayaa war haddaad xaaskaaga dahab rabto inaad siisanin oo la dhuumo anaa runta kuu sheegay wallaahi muqdisho dhibaa ka jira okay baabajay waa u galaynaa arrintiisa maxaa la yidhaahdaa shiikha waa culimmada ilaahay buu ka mid yahay waa shiikh diinta faafiya dadka wacyigeliya ummad badani ku xiran tahay joogana Soomaaliya mar haddaa shiikh tahay aada wacdigelisid ummadda masaajidna aada joogtid salaada jimcada ummadda ilaahay isugu imaanayso qofka bini-aadanka qalad waa ka dhacaa magafa waa ilaahay haddii baabajay qalad ka dhacay waa human being waa bini-aadan waa shaqsi magafa waa ilaahay waxa weeyaan si wanaagsan inaa ula hadashid inaad wacdid oo aad la hadashid taleefanka kula hadashid oo u sheegtay wuxuu ku qaldan yahay inaad ka wacyigelisid ayadda qur-aanka u akhrisid ilaahay ka cabsi aad tiraahdid maxaadaraysid of course wax wanaagsan weeyaan in aad u tagtid oo aad la hadashid oo aad la fariisatid oo sidoo kaleeto aad wacyigelisid oo u sheegtid wiilkani wuxuu ku qaldan yahay inaanu sameynin waxyaalaha qaarkood wix ilaahay ka reebay oo ka reebanaado wix ilaahay ka xarimay oo ka xarimanaado xaaskiisa aanu waqtigii dadku dabaaldegayeen waa waqti horta la dabaaldegayo oo waxa weeyaan afku waa furan yahay ummado badanna ay rafaadsan yihiin dhibaataysan yihiin aanay dabaaldegaynin ciiddii u dabaaldegaynin ama soomkii ay ku soo soomeen rafaad iyo dhibaato ama ay biyahaba cabaan cuntadii u gombiso suxuurtii u gudbiso afurkii qaliil ku yahay of course maadaama uu xaaskiisa kharash gareeyey hab siiyey shumiyey mujtamacii dhexdiisii macnaha waxyaalahaasoo badan oo shiikhu uu arkayo inuu ka wacdigeliyo si hoose inuu ugu sheego oo degan oo kaga wacdigeliyo oo ku yiraahdo aqi san ma ahan xaq ilaahay san ilaahay raallika ma aha suuradaana saan uga hadlaysa xadiiskana saan uga hadlaysa naxariistu qur-aanku waa naxariis qur-aanka ilaahay waa naxariis waa raxmad waxa weeyaan waa ku qaboojinaysa raxmad ku qaboojinaysa hadduu baabajay qaadan waayo waanadii shiiku u sheegay hadduu alla ka cabsigii qaadan waayo hadduu ayaddii qur-aanka ahayd khilaafo hadduu xadiiskii khilaafo haddii hoostii wax loogu sheegay uu yiraahdo shiikh aniga ha igu soo degdegina xagga iga joog shiiqu marka public inuu ka sheego directly xitaa xoogaa yaro dadban inuu uga sheego way fiican tahay waa aniga ra'yigayga sidai ay ila tahay maxaa la yiraahdaa shiiqa kuma wanaagsana
kumana haboona inuu sida tan uu babliga wiilka uga sheego oo masaajidkii dad yaqaana baabajay dadaan aqoonin baabajay ya intiiba inuu sheekhu saas u hadlo ma ahayn xaqiiqdii aniga sheekhu waa sheekh ilaahay waxa weeyaan sheekhayaasha wacdiga waan ka dhagaysanaa waan ka qaadanaa malaayiin baa ku xiran malaayiintaas culimmadaas aan ku xirannahay ayuu ka mid yahay waxa weeyaan waxay ku wanaagsan yihiin in hoos la isugu sheego sheekha dadka la joogana inay u sheegaan waxa uu ku qaldan yahay ee inay ku raacaan ma ahan oo yiraahdaan sheekhow marka horeeto la hadal qofkii wacyi geli qofkii macnaha ilaahay baa ku leh baabajay maxaa la yiraahdaa qaladka uu geysto ilaahay baa ka jasa marinaya oo bila aadanka ma jasa marinayaan adigu maadaama aad diintii taqaanid xaq waxaa u leedahay inaad gaarsiisid baabajay wixii uu jaahil ka yahay ama uusan ogeyn in aad ka wacyigelisid weeye muhiimada sheekh ya aniga sida ay ila tahay weeyaan maxaa la yiraahdaa yacni anigu sheekh waxaan sheegi maayo laakiin fikradeeda ayaan ka dhiibanayaa sheekhu asagaa diinta yaqaana qur-aanka yaqaana ma arkinino yacni diintu waa loo soo rafaaday waa loo soo jahaaday waxa weeyaan dad badan ayaa kusoo geeriyooday kusoo dhintay macnaha waxa weeyaan annaga nasteexa iyo nuurar nagu soo gaartay nasteexadaas iyo nuururadaas oo diintaas intaas ay kusoo socotay oo la fidinayay oo waxa weeyaan ragu soo rafaadeen loo soo jeeday oo rasuulkeena aad aragtay sida loogu soo galo asxaabtii waxa weeyaan intaas way noogu nasteexaynayeen nasteexada ayay ka mid tahay sheekhu inuu u sheego maxaa la yiraahdaa baabajay waxa uu ka qaldan yahay baabajay hadalkiisaan dhagaysanayna asagana waan ku dheeraaday u sameynaya war baabajayow jaahil baa tahay war muqdisho riskiyaa ka jira war mobeeladiyaa la isku dilayaa war haddaad xaas jawaabaye laakiin aragtideeda ka aadan aan rabaa inaan u jawaabo ma istaqfurullah waa nin sheekh ah uma jawaabaye laakiin aragtideeda ka aadan ayaan rabaa inaan hal iyo laba aan ka dhaho intaana gudagelin muuqaalka hal mar ila daawada sheekhaas misaajidka dhexdiisa weliba maalin jimco ah khudbo la dukanayo waxa uu iga soo dhahay hal mar ila daawada xaaskaygaan laba filaan u samaynaya war baabajayow jaahil baa tahay war muqdisho riskiyaa ka jira war mobeeladiyaa la isku dilayaa war haddaad xaaskaaga dahab rabto inaad siisanin wala dhuumo anaa runta kuu sheegaya wallaahi muqdisho dhibaa ka jira maanta ninka inta uu madax soo hor istaajiyay xaaskiisa yidhaahda dahab baan siinayaa waa nin ka dhacsan waa nin waalan waa nin jaahil ah waa nin waxa muqdisho ka jira aan war u hayno sheekh wallahi kalaa muuqaalka waad aragteen wuxuu ka hadlayaa si fiican baad ugu dhalagteen haddaba aniga waxaan doonayaa aragtideeda kaga aadan 3 qodob oo kaliya inaan ka dhaho in aan warka sii dheeray aniga ma jecli tan koowaad tusaale ahaan sheekha wuxuu igu arkay aniga xumaan dacwada amaba diinta islaamka ee rasuulkan calayhi salaatu wasalaam si naxariisna ayuu ummadda ugu gudbin jiray adiga qof walaal ah qof ehelka ah qof asxaabta ah aad waxaad ku aragtay xumaan midda koowaad haddii caaqil qofka uu yahay sheekh dhammaystiran uu yahay sida aan ka aragnay culammadeenna oo ugu horeeya sheekh mustafa qofkiina aad u imaado aad dhahda awalan walaalow waad qaldan tahay waxaad ku socotid xumaan waa ilaahay raali kama aha ummadana raali kama ahan ha fasaahadinin ummadda waaba haddii qofka qalad lagu haayo walaalow iska dhaaf si hoose ugu sheegaysaa qofka waa uu ka qaadan waaye waxa ku furan waddo labaad eheloo leeyahay qaraaboo leeyahay toloo leeyahay asxaaboo leeyahay waad u imaanaysaa war qofkiina naar buu ku socdaa wax fiican ma samaynayo ummadda xumaan buu u gudbinayaa ummadaha laga qabto wanaagiis baan jeclahay jannaan la rabaa ehelkeed u gudbinaysaa wax celiyo amaba wax ishta haddii aad weyso qodob saddexaad ku furan oo ah in aad babliga dhex keenta dhado ummadoo ilaahayo ninkan daawada xumaanuu samaynaa saanuu yeelaa kan uu yeelaa saddexda mid ka mid ah ma aadan samaynin aniga qof la weyn kara ma ihi qof bulshada dhexdooda magac ku leh okay intaasuu leeyahay amba waa soo iri anyway hadalkuu sii dheeraanayaa
marka shiiqu sidaa ujeediinba lama soo xiriirin baabajey lama uusan soo xiriirin oo iska gudbinayaa de marka hase ahaatee ayaanuba la soo xiriirin laakiin baabajey wixii uu ku qaldan yahay waa ku qaldan yahay inuu macnaha babliga xaaskiisii ku siiyo waxaas la sheegayo dahabkaas iyo adduunyadaas iyo hagtaas it's very wrong because we so modernized waa sii soconaa macnahadaasna de muslim baan nahay of course meeshii gaajada iyo rafaadka iyo dhibkii taagnaad isaga xaaskiisa waxaa u muuqatay inuu hadiyad guddoonsiiyey waqtigii ciidda you know calaa kulli xaal waxyaalahaas waa ku qaldantaa baabajey sida shiiqa u sheegaba laakiin shiiqa way ahayd sida aada u hadashabay aniguna waan soo iriyo inuu kula soo xiriiro haduu adiga ku waayo faamiligaadii sida adigu ku dartay well dadkaan u daaya taasna arrimahaas dadka ayaan kaga aadan inaad adiga qofka u xugmin karto sida ilaahay inaad tahay oo kale aad kaga hadashay tan labaad waxaad ka soo hadashay masaajid dhexdiisa waxaad igu aflagaadaysay masaajid dhexdiisa waa baytullah waxaad igu tilmaamtay inaan ahay qof jaahil ah waxaad igu tilmaamtay qofka inaan xumaan gudbiyo waxaad igu tilmaamtay inaan xaaskayga bulshada dhexdeed aan ku mashquuliyey taasna waa qalad aad adiga iga gashay ilaahay xaggiisa markii la dhahana waxaan kaaga baahanay raaligelin bulshada dhexdeeda waxaan kaaga baahanay raaligelin waa haddii aad tahay qof ku socdo dacwada ilaahay inuu ummadiisa u gudbiyo qodobka labaad waxa uu yidhi baabajey uu wanaag samaynaya haba yaraadee qofkii ii keeno maadaama ay ku xiran yihiin 300 iyo wax ka badan waxaan siinayaa abaalmarin gaarayso $1,000 waayahay intaanan ka hadlin taas hal mar ila fiiriya muuqaalka youtube-kayga aan soo dhigay weliba 9 maalmood ka hor bas ay ku dheehan tahay dareemi karo nolosha iyo maciishadeeda adag sida ay tahay wuxuu fahmi karaa qoyska hayn xaaladooda wuxuu fahmi karaa sabigan waxay u baahan yihiin dugsiyo dhigtaan iskuula ee u baahan waad aragtay muuqaalka soo maahan 9 maalmood ka hor ayay ahayd waxaan u gargaarayay qoys waxaan dhahay ilaahay ha laga cabsado calaa kulli xaal baabajey wiilka yarkahaana muusan soo qaadanin wiilka yarkaana shiiqu siduu kaga hadlay taasna waa ku qaldantaha wiilka yarkaa baraha aa soo dhigtay anyway laakiin dadku waa isa soo shaacbixiyaa kii bilaabay maadan ahayn kii u horeeyana maadan ahayn macnaha I don't know shiiqu wuxuu kugu qabsaday waan arkay dad badan oo soo caanbixinaya ciyaal yaryar waan arkay wiilal yaryar oo youtube-yada kasoo hadlaya I don't know shiiqu ma aqaano meesha isaga iyo baabajey ay iskala qaadeen anigu xajadu wacdi igala weyn wacdina way tahay laakiin waa shiiq ku xiran baabajey oo baabajey la socdo xaqiiqdii qofka markaa wuxuu sheegaysid oo waaninaysid waxaa wanaagsan sidii ilaahay kuu faray diinta inaa u fartoontid ood ugu waanisid shiiq waa naga diin badan yahay diintana waa naga yaqaanaa allah u siyaadiyo laakiin sidii ay maaragtay arrinta ku habboonayd weygii I believe xoogaa iyo shiiqu inuu ka yaro weecday laakiin labaduba inay iscafiyaan oo cafi aliyo masaabax is yiraadaan ayaan ilaahay ka rajaynayaa haltaasaa uga baxayaa guys kama sii dheeraanayo marka baabajeyna waa qaldan yahay shiiquna dee isagaaba diintii faafinaya wixii ka yaro dhamana dee ilaahay baa ina wax ka dhimayin uma malaynaya astaqfirullah ilaahay toob isagu de meesha weygun baa xoogaa yar sidbaday siday aniga ila tahay marka alxamdulilah liked iyo shareta subscribe guys waan kusii dheeraaday actually marka baraha bulshadana waan kusoo aragteen sida ay la tahay commentiga waa xaggiina laakiin share subscribe like-tana ugu dadaal shareta meel dheer bayna gaarsiinaysaa like-tana waxa weeyaan de waa xaggiina subscribe-kuna dee waan idinka sugaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqti rabadaan shabcaana lagu jira waqti rabadaan ilaahay rabadaanka soo socda ilaahay nabad iyo naxariis ha noogu dhaliyo kuwii dambiyadooda la cafiyana ilaahay ha naga dhigo kuwii toobadkeenana ilaahay ha naga dhigo soonkana laga aqbalo insha allah bye guys